Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow Awli Media. Casharkan waxaan kaga hadli doonaa waa maxay subjective pronouns, waa imisa subjective pronouns, goorma ayaa la adeegsadaa, waxaana kuu soo jeedin doonaa anigoo ah Ridwaan Maxamed. Waa maxay subjective pronouns? Subjective pronouns waa magacuyaal shakhsiyadeed. Subjective pronouns macnaheedu waa magacuyaal shakhsiyadeed, waana 7 magacuyaal. Ila soo eeg waa kuwan 7 subjective pronouns. 1. I macnaheedu waa aniga. 2. He waa isaga, keliya waxaa loo adeegsadaa labka. 3. She waa iyada oo waa gabadhii. She macnaheedu waa iyada. It waa shayga iyo xayawaanada. It waxaa loo isticmaalaa shayga iyo xayawaanada. 5. You waa adiga. Qofka marka aad la hadlaysid waxaad odhanaysaa you, adiga. Adigagan hadda daawanaya waa you, waa adiga. 6. We inaga ama anaga, yacni dad fara badan oo aad ku jirto weeyaan. We waa inaga ama anaga, yacni dad fara badan oo aadna ku jirto. 7. They waa iyaga, yacni dad fara badan oo inaga maqan weeyaan. They waa iyaga. 7daas waxaa la yidhaahdaa subjective pronouns. Tusaale, I am your friend. Anigu waxaan ahay saaxiibka. Yacni I maxay u taagan tahay? Waxay u taagan tahay aniga. Marka aad I maqasho waa inay maskaxdaada kusoo degdegtaa inuu qofkaas naftiisa ka hadlay. I macnaheedu waa aniga. 2. He is my father. Isagu waa aabbahay. He macnaheedu waa isaga. Waa inaad garataa marka aad he maqasho in laga hadlayo nin ama inan. He isagu waa saaxiibkay. Isagu waa saaxiibkay. Isagu waa aabbahay. Isagu waa macalinkayga. Isagu waa taajir. Yacni waxaasoo dhanba waa he ayaad u isticmaalsaa. Markasta oo aad maqasho amaba aad aragto he, waa inaad u fahanto in laga hadlayo nin. He waa isaga. 3. She is my wife. Iyadu waa xaaskayga. She waxaad u adeegsanaysaa gabadh, laakiin uma adeegsan kartid gabdho fara badan. She waa iyada. Gabadh ayaa laga hadlayaa. 4. It is my cat. Iyadu waa bisadayda. It waxaa loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa shayyaasha iyo xayawaanada. Mar walbood it aragto ama aad maqasho waa in maskaxdaada kusoo dhacdaa in laga hadlayo xayawaan ama shay. Haddii aad qof ku tidhaahdo waxni waa maxay sidaa, dabcan qofkaas degdeg ayuu kaaga xanaaqaya, waayo it ayaad u isticmaashay. Looma isticmaalo qofka it. U isticmaal markaad sheegayso shay ama xayawaan. Tusaale, it is a chair, it is my dog, it is a table. Yacni it waxaa loo isticmaalaa shayga iyo xayawaanada. Inaad ila fahantay ayaan u malaynayaa. 5. You are my student. Adigu waxaad tahay ardaygayga. Adigagan hadda daawanaya waxaad tahay ardaygayga. 2 sifo waad u isticmaali kartaa you. Waa marka koowaade inaad dad badan aad la hadlayso. Tusaale, I am greeting all of you, ama it gives me a great pleasure to stand in front of you. Farxad ayay tahay inaan hortiina soo istaago. Marka waxay ka dhigan tahay inaad you u isticmaashay dad fara badan oo aad la hadlaysay. Waa marka labaade you waxaad u isticmaali kartaa hal qof. Tusaale, qof ayaa wadada kaaga hor yimid. Waxaad ku odhanaysaa how are you. Waxaad ka wadaa sidee tahay, oo hal qof ayaad la hadlaysaa. 6. We are friends. Waxaanu nahay saaxiibo. Waxaad ka hadlaysaa adiga iyo dad kale oo aad saaxiibatiin. We anagu macnaheegu we waxa weeyaan anaga ama inaga. We waxaad ka hadlaysaa adiga iyo dad kale oo aad la joogtid. Waad qof uga hadlaysid. We are friends. Waxaan nahay saaxiibo. We are students. Waxaanu nahay arday. 7. They are liars. Iyagu waa beenaalooyin. Markan waxaad ka hadlaysaa dad inaga maqan oo inala joogin. They ayaad ka sheegnaysaa. They iyagu waa sidaa. Iyagu waa sidaa. Iyagu waa noocaas. They yacni waxa weeyaan iyaga, dad aan inala joogin oo aad ka sheekanayso fara badan dee. Aan ku siiyo qodob yar oo kale oo aad u muhiim ah. 7 subjective pronouns waa inay ku kala soocan yihiin kuwii jamac ahaa iyo kuwii mufradka ahaa. Singular and plural. Okay, soo eeg shaashada.
I waa single, he waa single, she waa single, it waa single, you waa single iyo plural labadaba way noqonaysaa. We waa plural, they waa plural. Hagaag, waxaan filayaa inaad fahantay dhowrkan qodob ee aan ka soo hadlay. Hadda waxaan u galayaa su-aasha ah goorma ayaa la adeegsadaa subjective pronouns. Waxaa la adeegsadaa ama loo isticmaalaa halkii uu magacu geli lahaa. Halkii uu magacu geli lahaa ayaa la dhigaa. Inta badan waxaa la isticmaalaa tagiska ama qoraal markaad qorayso. Tusaale, Cali waa saaxiibkay. Cali is my friend. Wuxuu mar walba jecel yahay. He always like. Yacni halkii aad Cali ku soo celin lahayd, he ayaad ku bedelaysaa. He ayaan dhigayaa halkii magaciisu geli lahaa. Cali, Cali, Cali intaad ku celcelin lahayd ayaad isticmaalaysaa subjective pronouns, magacyaal shakhsiyadeed. Marka magacyaal shakhsiyadeed haddii aad magaca ciwaanka cashirka aad fasirataba ayaaba kaaga filanba. Halkii uu magacu geli lahaa ayaa la dhigayaa subjective pronouns. Marka hore magaca sheeg, kadibna subjective pronouns waxaad ka sheekeynayso ha ahaado wixii ka dambeeya. Iminka xayawaan baan ka sheekeynayaaba. Xayawaankii aan ka sheekeynayay waa inaan magaciisa marka hore sheegaa, kadibna it aan mar walba xayawaanka soo hadal qaado waa inaan it idhaahdo. Inaan magaciisa ku celceliyo maaha. Markaas inaad fahantay ayaan maleynayaa cashirka maanta. Intaynu cashirkan cashir lamid ah ku kulmayno waxaan igaga tagayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.